بسم الله الرحمن الرحيم في دوناكسنا خيارتا نلا سocota meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo tabin gaar oo kamid ah dhacdooyinka wararka caalamka iyo lafagurka diblomaasiyadda waa 12ka Juun sanadka 2026 tabintan qodobada aan idin kugu hayo oo dhinacyo kala duwan taaban doona waxa kamid ah dawladda Mareykanka iyo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran labadaba caawa waxay ku dhawaadeen in ay heshiiska wada galaan iyadoo wafuudii ugu horeysay oo heshiiskaasi qayb ka noqonaysa ay u dooleen magaalada Geneva ee wadanka Switzerland Maxamed Isxaaq Dar ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Pakistan oo ah dhinaca dhaxdhaxaadinta ayaa u doolay halkaasi Switzerland dawladda Mareykanku waxa ay sheegtay in heshiiska lala galayo dawladda Iran aanu jirin wax abaal marina oo looga bedelanayo sida darteedna ay ku qasban yihiin in ay galaan wakaalada wararka ee Axios ee ka soo baxda dalka Mareykanka ayaa goor dhaweyd arrimahaasi baahisay waxaana dadka qaar ay soo bandhigayaan isbedelada waaweyn ee hadda ka soconaya gobolkaasi dhinaca kale dawladda Iran ayaa ku dhawaaqday in ay ku jiraan marxaladii ugu dambeysay ee go'aanka gaarista haddii ay saxiixayaan heshiiska lala galayo dawladda Mareykanka kaas oo iminka la leeyahay rajo wanaagsan ayaa ka jirta dhinacyadu in ay isku soo dhawaadaan madaxweynaha dalka Mareykanka waxa uu dhambaal canaana u diray ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu waxaana uu sheegay dagaalkii gobolka bariga dhexe in uu soo gabagaboobay sidaas darteedna aan jirin wixii hadda ka dambeeya arrin ay Israel fadqalaleyn karto marka la fiiriyo sida ay wax u socdaan iyo isbedelada iman kara warbaahinta gobolka bariga dhexe caawa faaleynayana waxay soo bandhigeen adkaysiga dawladda Iran iyo in Mareykanku uu ku sontanaaday markii ugu horeysay in uu ka adkaan waayo wadan ku yaala bariga dhexe sidaas darteedna uu heshiis kama dambaysa la gali doono wadanka Iran waxa la leeyahay heshiiskan iyo waliba is-afgaradka waxa la galayaa iyadoo noqonaysa dawlad sharfan oo caalamka si weyn looga yaqaan wixii hadda ka dambeeya haddaba dagaalka kadib ay heshiiskan gobolka bariga dhexe xagee u jihaysan doona waa su'aasha ugu weyn ee caawa ay la fagurayaan taxliilayaasha gobolkaasi indhaha ku haya ee faaleynaya dagaalka iyo mustaqbalka gobolkaasi uu jihaysanayo qodobadaas iyo kuwa kale oo gaar ah ayaan ku faaqidayaa barnaamijkan khiyaarta ay nala socotay soo dhawaada oo ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara oo mahadsantiin ma ogtahay in dhakhtar Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba wuxuu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar xilli la soo warinayo in dhinacyada ku loolamaya gobolka bariga dhexe ay soo gaareen gabagabadii miiska wada hadalka ay ku aadi lahaayeen iyadoo heshiiska loo calaamadeeyo maalinta Axadda ee soo socota inuu ka dhaco magaalada Geneva heshiiskaasi oo noqonaya mid taariikhi ah oo 100 maalin kadib lagu soo gabagabeynayo colaadii ka aloosneed gobolka bariga dhexe laga soo bilaabo 28 bishii February ayaa hadda waxay u socotaa meel aad iyo aad xasaasi u ah dawladda Iran inkastoo loo arko wadanka ku guuleystay dagaalkan haddana madaxdeedii ugu sareysay saraakiisheedii ciidamada aqoon-yahankeedii iyo waliba dadkii talada ay ka go'aysay ee lakabyadii isku xigay ayaa lagu soo waramayaa inay ku weysay hase haatee waxay noqotay dawlad adkaysi leh oo u babac dhigtay wadankii dunida ugu awoodda badnaa iyo sidoo kale nidaamka Israel oo reer galbeedka ay ku ilaaliyaan halkaasi Mareykanka ayaa calaamad su'aal ay dul saaran tahay hadda awoodiisa haddii dawladdan Iran ay heshiis la galaan waxyaabaha ugu weyn ee indhaha lagu hayana waxaa kamid ah qodobada iyo nuxurka heshiiska kumeel gaarka ah ee la saxiixi doono haddaba dawladda Mareykanka ayaa caawa war soo saartay sarkaal sare oo aqalka cad ka tirsan oo la hadlay majalada Axios ayaa waxa uu ku dhawaaqay in dawladda Iran aan wax abaal marina lagu siin doonin heshiiska ay la gashay dawladda Mareykanka sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Donald Trump ayaa sheegay in heshiiska la filayo in Mareykanka iyo Iran ay ku gaaraan magaalada Geneva ee wadanka Switzerland ay noqonayaan tillaabooyin xaqiijin karaya nabadda isla markaana aan ku dhisnayn kalsooni ama ballanqaad oo kaliya sida uu doodiisa u dhigay sarkaalkan ayaa sheegay in Mareykanka uu gacanta ku dhigi doono
waxyaabaha uraniumka ah ee la naaxiyay ee Iran. heshiisku waxa uu ka koobnaan doonaa ayuu yiri nidaam kormeer iyo baaritaan adag oo dowladda Iran ay wajahi karayso. haddii Iran ay u hoggaansato waajibaadkeeda waxay heli doontaa buu yiri faa'iidooyin dhaqaale iyo fududeyn cunaqabataynta saaran sida dowladda Mareykanku ay hadalkan u dhigayso. Washington ayaa la filayaa in heshiiska ay la saxiixato maalmaha soo socda dowladdaasi. qabyo qoraalka heshiisku waxa uu horseedi doonaa baa la yiri qaadista cunaqabataynta Mareykanka iyo burburinta barnaamijka nuclearka dowladda Iran. waa sida ay ku tiraabayso dowladda Washington. Iran ayaa inta aysan wax faa'iido ah helin si toos ah waxa la yiri waxay u gali doontaa heshiiska sida dowladda Mareykanku ay doodooda u dhigayaan. sargaalku waxa uu intaasi ku daray in heshiiska uu si cad u qeexayo furitaanka barimbiyoodka istiraatiijiga ah ee Hormuz, qaadista xayiraadda dhaqaale iyo wareejinta ama ka saarista waxyaabaha nuclearka ah ee dowladda Iran ay haysato. inkasta oo dowladda Washington ay weli ay ku adkaysanayso waxyaabo u dhigmaya inay libin ku gaari karayso, haddana dhammaantan qodobada ay sheegeen kuwa ku cagsi ah waxa maanta baahiyay dowladdaasi Iran. hase haatee madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa ku tilmaamay arrimahaasi inay yihiin kuwa aan la qaadan karin. waxa uu sidoo kale sargaalkan sheegay in horumar weyn laga sameeyay qoraalka heshiiska isla markaana ay afgaradka faahfaahinta burburinta uraniumka hadda la hodmiyay ay meel fiican marayso. sargaalku waxa uu xusay qoraalka afgaradka in uu siinayo Iran in ay wado ay heli karto baa la yiri faa'iidooyin dhaqaale haddii ay ka tanaasusho arrimaheeda nuclearka. waa sida ay dooda u dhigayaan. dhinaca kale haddii aan fiiriyo wararka caawa ka soo baxaya warbaahinta Israel ayaa tilmaamaya in madaxweynaha Mareykanku Donald Trump uu dhambaal aad u adag oo u muuqanaya mid amara u gudbiyay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo weli ka ganacsacsan heshiiska dowladda Washington iyo Tehran ay gaari doonaan maalinta Axadda ah ee soo socota. Trump waxa uu luqad cad ugu sheegay oo aan la laabasho lahayn Israel dagaalkii gobolka Bariga Dhexe xagga Mareykanku inuu soo gabagaboobay, taasoo macnaheedu uu noqon karayo haddii Israel ay dagaalkaasi sii gasho in ay la kulmi karayso oo kaliya dagaal ay ku kaliyeysan doonto, sidaa daraaddeedna aysan Iran u babac dhigi karin. telefishinka 12aad ee Israel oo soo xiganaya ila Mareykan ayaa waxa uu sheegay in Donald Trump uu wicitaankiisii ugu dambeeyay uu ku wargeliyay Netanyahu in heshiiska laga wada hadlay uu yahay mid wanaagsan isla markaana la gaaray waqtiga la soo afjari lahaa dagaalka gobolka Bariga Dhexe. sida uu sheegay ilaha Mareykanka, Netanyahu wax badan kama hadlin wada hadalka teleefanka ee la leeyahay Donald Trump, waxaana uu u muuqday baa la yiri in uu garwaaqsaday in uusan awood u lahayn in ay saameyn ku yeeshaan heshiiska hadda socda, isla markaana Israel ay ku qasban tahay oo kaliya inay aqbasho dooda Mareykanka. warbixintu waxay tilmaamaysaa in maamulka Donald Trump uu sii wadi doono dadaalada uu ku doonayo heshiis laga gaaro arrimaha u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran, iyadoo ay ku jiraan baa la yiri caqabadaha muujinaya in dhinacyada ay si dhow ula soconayaan xiisadaha taagan, doodaas oo iminka u eg mid si weyn saameyn ugu yeelanaysa dalkaasi Mareykanka. marka la fiiriyo gobolka Bariga Dhexe, dowladihii ka shaqeynayay wada xaajoodka ee garwadeenka ahaa waxay hadda bilaabeen inay u dabaaldegaan guusha la filayo heshiiska maalinta Axadda lagu wado in uu ka dhaco magaalada Geneva ee wadanka Switzerland. ra'iisul wasaare ku-xigeenka wadanka Pakistan ahna wasiirka amuraha dibadda Maxamed Isxaaq Dar ayaa u dhoofay halkaasi isagoo diyaarad gaar ah isaga iyo wafdi la socday ay ka qaateen magaalada Islamabad ee caasimadda wadanka Pakistan. heshiiskan ayaa haddii la gaaro waxa uu noqonayaa mid taariikhi ah oo dowladdaasi Pakistan dhibcad diblomaasiyadeed oo ballaaran ay uga kordhi karaan. wakaaladda wararka Iran ee lagu magacaabo IRNA ayaa sheegtay in wasiirka amuraha dibadda Pakistan uu caawa u safray magaalada Geneva isagoo sii wada dadaalada dhexdhexaadiyaasha u dhaxeeya Mareykanka iyo dowladda Iran. sida ay wakaaladdu warisay, safarka wasiirka ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa horumarinta wada hadalka iyo sida isku dabaridka suurtagalnimada heshiiska ama is-afgaradku ay u gaari karaan labada dhinac ee wada xaajoodka ku wada jira.
Pakistan ayaa muddooyinkii ugu dambeysay dadaalo badan ku bixinaysay sidii heshiiskaasi gool weyn looga gaari lahaa. Dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran ayaa caawa waxay ku dhawaaqday xaggooda inuu ka soo gabagaboobi doono dib u eegidda heshiiskan la filayo oo qodobada ay si weyn u lafaguri doonaan sharci yaqaano, diblomaasiyiin iyo dad daneeyaal qaran ah kuwaasi oo si weyn ila kala duwan ugu eegi doona ka hor heshiiska intaan lagu saxiixin magaalada Geneva. Warbixin ka soo baxday wasaaradda amuraha dibadda ee waddanka Iran ayaa lagu sheegay inay ku jiraan marxaladihii ugu dambeeyay ee go'aanka gaarista qoraalkaasi is-afgaradka ee lagu wada hadlay iyadoo la xusay qodobada ugu badan ee heshiiska in la isku afgartay oo dhinaca Iran ay ka soo dhamaadeen. wasaaraddu waxay cadaysay in hadda uu sii socdo kaliya ay leeyihiin hay'adaha mas'uuliyiinta Iran in ay qusayso arrintan inay si gaar ah u lafaguraan iyadoo dad khubaro ah ay ku wadaan akhrintii ugu dambeysay. sidoo kale waxa ay sheegtay habka Iran ee wada xaajoodku inuu ku salaysan yahay gaarista natiijooyin wax ku ool ah iyadoo waxa lagu qiimeynayo mowqifyada dhinaca kale ka imaanaya ay yihiin kuwa dowladda Iran ay ilgaara ku hayaan. wasaaradda amuraha dibadda dowladda Iran ayaa intaa ku dartay in heshiiska Iran iyo Mareykanka uu ku dhow yahay in si kama dambaysa loo soo gabagabeeyo walina dowladda Iran waxay ku adkaysanaysaa in dhinaca kale aanay u sameyn doonin wax tanaasulaad ah marka ay timaado gorgorinta danaha qaranka iyo madax banaanida Jamhuuriyadda Islaamiga ah. ugu dambeyntii iyadoo heshiisa la filayo in laga gaaro xaaladda gobolka Bariga Dhexe markii ugu horeysay warbaahinta reer galbeedku waxay qirteen Mareykanka dagaalkaasi inuu ku fashilmay marka la eego sida ay hadda wax u socdaan inay noqonayso cidda dhibcaha siyaasadeed ee guusha iyo libta dagaalka gobolka Bariga Dhexe ay ku naaloonayso dowladdaasi Iran waa sida qaar ka mid ah wargeysyada ay tilmaamayaan. warbixin ay xiganayaan qaar ka mid ah warbaahinta Carabta isla markaana uu daabacay wargeyska The Financial Times ayaa waxa ay muujinaysaa dowladda Washington in ay wajigabax ay la kulantay isla markaana dunida horteeda ay ku kuftay taas oo hadda isbadbaadin weyn oo caalami ah ay doonayso. waxyaabaha dowladda Iran ay guushan kama dambaysta ku hanatay waxaa ka mid ah arrimaha sida gaarka u quseeya gantaalaha waxaana loo bixiyo dowladda Iran waddanka guulaha gantaalaha ku naaloonaya marka si guud loo eego xaaladiisa. wargeyska The Financial Times ayaa daabacay warbixin sheegaysa in xarumaha gantaalaha ay dhulka hoostiisa ku yaala ee Iran ay muujiyaan adkaysi weyn inkasta oo ay duqeymo joogto ah ay ka fuliyeen Mareykanka iyo Israel. goobaha ugu muhiimsan ee la sheegay warbixintu waxa ay tilmaamaysaa inay ka mid tahay buuraha loo yaqaan Yazd ee ku yaala bartamaha waddanka Iran. xarunta ayaa sidoo kale la sheegay in ay sii waday ridista gantaalaha ilaa saacadihii ugu dambeeyay ee heerka xabad joojinta hadda la gaaray. qiimeyn sirdoon oo reer galbeedku ay sameeyeen ayaa sidaasi lagu sheegay. qiimeynta sirdoonka ee reer galbeedku waxay muujinaysaa in Iran ay weli haysato 70% madalaha gantaalaha laga tuuro iyo kayd ballaaran. tani waxay ka dhigan tahay in weerarada cirka aysan si buuxda wax uga keeni karin dagaaladii dowladda Mareykanku ay qaadeen Washington ay garowsatay dowladda Iran inaanay ka adkaan karin. haddaba maxay ka dhigan yihiin xarumahan ama ka dhigay kuwa adag marka la fiiriyo dooda taagan? warbixintu waxay tilmaamaysaa 3 qodob oo istiraatiiji ah inay arrintan muhiimad gaar ah u leedahay. in marka hore laga qoday buuraha iyo dhulka hoostiisa si qoto dheer oo farshaxanimo leh. in loo dhisay iyaga oo badbaadana helaya inay duqeymaha cirka sameeyaan. inay leeyihiin marino qarsoon oo dhinacyada arrintan u kuurgalaya aysan heli karin. macnaha arrintan ay u leedahay dowladda Iran ayaa sidoo kale muujinaysa arrimaha istiraatiijiyadda inay muhiim u tahay. haddii warbixinta ay sax ahayd waxay muujinaysaa in Iran ay weli haysato awood gantaal oo muhiim ah inkastoo cadaadiska military uu xoogan yahay. duqeymaha kaliya aysan ku filnayn baa la yidhi. tanina waxay saameyn ku yeelatay xiisadda militariga ee gobolka waxaana ay muujinaysaa dowladda Washington in ay dagaalkii hadda dib uga guratay oo ay nabad qaadanayso. fiid wanaagsan khiyaarta nala socota ay tabinta qaybtana intaas ayaan ku gabagabaynayaa. waa Cabdicasiis Barrow idile falanqayn iyo faallooyin kale oo ku saabsan
xiisada gobolka bariga dhexe iyo dadaalada diblomaasiyadda ayaa inoo soo socda soo dhawaado ku soo biira YouTube-ka waa mahadsantiin